بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في العقيدة، جموعdan tirada badan la isu timo ugu horreyn waa idin mahad celinayaa. Inkastaan xaraj badan dareemayo oo waxaa filaysaan iyo malaa intaan wada ay kala buurantaa laga yaaba. Calaa kulli xaal, mawduucan la tilmaamay inaan wax ka idhaahdo oo walaaladu codsadeen aan ka mid ahayna runtii mawaadiicda aan jecelay shakhsiyan. aidisku oo kelmad reer galbeedka inooga timiya oo ah erayo lasoo koobay acquired immune deficiency syndrome, oo marka la koobo markaasi loo bixiyey aidis. luga alcarabiya haddaynu ka eegno lagu tilmaamo inay tahay marad aw carad. dadka badhna waa marad bay leeyihin, qaarna waaba iska carad bay leeyihin. carad fuqdaan almanaaca almuktasiba, oo ah xanuun ama muuqaallo qofka ka muuqda bini aadamka ah oo ku saabsan awooddii ilaahay siiyey ee jidhkiisa difaacaysay oo la waayo. awooddii jidhkaaga ku jirtay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ee loogu talagalay inay ku difaacdo oo jaraasiimta iyo bakteriyaadka iyo xanuunadaasi kaa difaacdo oo meesha laga waayay. yacni waa dawladda ciidankeedii la waayey. hadday dawladii meel ka dhisan tahay oo ciidankii xaraaska ahaa ee ilaalinayay dee dawladdan iyo xuduuddeeda iyo waxeedaba meesha laga waayo, waa inay markaa boobtaa tuugta iyo dee qutaacu ariiqa iyo cid waliba waxay ka qaadi karta inuu ka qaado. masalada tani markaas aidiska lagu tilmaama qaabka dadku maanta uga hadlayo dunidu u wado, low hadday ahaan lahayd qaab tibbiya oo xanuun iyo daaweyntii laga hadlayo kamaan hadleen, waayo aniguna dhakhtar ma ihi, shaqana kuma lihi. waxay ku koobnaan lahayd inay dhakhaatiirtu ka hadasho. laakiin haatan waa loo waayay dhakhtar ka hadla oo dawaba looma hayo. maadaama aan dawaba lahaynin dhakhtar muxuu sheegi? idan waxay bilaabantay in loo dhaqaaqo dhan kaloo ah tawjiihi suluuki alinsaaniy. daawanimadii laga teg, waayo daawo lama hayo. waxa laga hadlayaa markaa wuxuu yahay qaabkee loo wajahaa qofka dhaqankiisa. idan waa mas'ale akhlaaqiyaadka qofka iyo muctaqadkiisa iyo wuxuu rumaysan yahay iyo anmaat alxayaa, qaabku u noolaanayo, qaabku u dhaqmayo ku saabsan. idan waa mas'ale ka baxsan dhakhtarnimo. low ay ahaan lahayd xanuunkan in marka la baadho in la odhan lahaa intaasoo dawo kaabsaliya, intaasoo kiniinaa liqsiiya, waxaa siiya, fursad inoogama bannaanaata inaan kan idhaahno waxba. maadaama aan cidiba u haynin dawo, dhakhtar iyo mid wax garanaya mid aan wax garanaynin ba ay u fayteen inay ka warramaan. laakiin waxay sheegayaan uu yahay suluugaaga iyo dhaqankaaga in wax laga tilmaamo. maadaamaan dad muslimiin nahay, runtii waxaa habboon inaynu tilmaamno qofka muslimka ah meeshuu iska taagi lahaa iyo mowqifkiisa inaynu wax ka sheegno. waa midda kale waxa kani wuu faafay dunidana si aada buu u faafay. ixsaa'iyaadka ay maanta caalamka sheegayaan waxay ku tilmaamayaan inta u dhimatay AIDS 28 milyan bay maraysaa bay leeyihiin.
إحصائياتكooda say tilmaamayaan 28 milyan oo qof baa u dhintay hadda intuu haya bay leeyihiin 40 milyan oo qof baa u jiifay leeyihiin oo haya sanadkan dhamaado qura bay leeyihiin 3 milyan oo qof buu dilay sanadkii hadda ina soo dhaafay oo kaliya waxay ku tilmaamayaan inuu 3 milyan oo qof dilay baqaha laga qabayo wareerkiisa waxaad ku garan kartaa misaal quraan ku siinaya internetka hadaad gasho 9 milyan oo web page baa jiro AIDS-ka ka warrama u fiirsaad arinta internetkan yar ee agtiina wada yaala hadaad gasho web pageska lagaga warramayo internetku web pageska ku jira ee ka warramaya AIDS iyo saala isaga ilaaliyo daweyntiisa iyo digdigtiisa ka warramaya waa 9 milyan oo web page baa ka warramaya idan waxaad garan kartaa waxa laga qoray dadku waxa uu sheegayo hadalku sidoo tiro badan yahay caalamka baqaha uu ku hayo inta uu leeyahay ayaad ka qiyaasi kartaa meeshaas baad ka garan kartaa waxa kale inta uu leeyahay maadaama ay dunidu maanta aad u qaylinayso oo ay leeyihiin maalin kasta bay leeyihiin 14,000 oo qof ku dhacaa cusub ihsaayaadkooda say tilmaamaan kulli yoom 14,000 oo qof buu haleelaa bay leeyihiin oo waliba ah bay yiraahdeen da'da u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir da'da maratay baabaaday ee bahalkan haya waa 15 jir bay leeyihiin ilaa iyo 24 jir da'da u dhaxaysa waayo waa da'da zunaada waa da'da ugu tirada badan le maxay xumaha iyo zinada iyo wixii la halmaala maadaama dunidu ay koobnaatay maanta oo xanuunka meel lagu hayo uu dhanka kale si fudud u gaadhayo mujtamacaadka basharigiina si aad u fudud u gaadho wuxuu mudan yahay mawduuca kanisay walaaladeen u dhigeen inaan waxoogaa kooban ka idhaahdo waxoogaa kooban aan ka odhanaya runtii waxaan aynu nidhi xanuunna maaha ee waa ilaahay oo garabkaaga ka baxa يعني إلهي بين إلاليه سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إساقاكو إلاليه يحفظون من أمره هذا سيحة هذا سوچيدو الله كو إلاليه سبحانه وتعالى إلهي باقوى أبو ري عيدا دن وشركاك كمدا وأدوى آند وحبكو أغين وهبين إيا مالين باكو دورية مثلا وحيدا دان جركاك وحا كتيرا خطوط الدفاع ضمبه markaynu ka warano kuwan sare diirkan iyo soo jeedkan iyo xoogan iyo waxan markaynu dhaafno aynu jirka gudihiisa tagna bay yiraahdaan كرويات البيضاء أما خلايا الدم ديجا waxa ku jira bay yiraahdeen khalaayadkiisa ama unugyadiisa saliskiis laba qaybood ba kamida bay yiraahdaan qayb la yiraahdo B salis iyo qayb yiraahdaan T salis ama khalaaya limfawiya lymphatic saliska waxay ku tilmaamaan khalaayadkaasi waa unugyo ilaahay ku siiyay subhanahu wa ta'ala oo lagu talagalay inuu ka difaaco bale oo dhan qayb bay leeyihiin qism lil-istitlaa' qayb bay leeyihiin litasniic al-asliha qayb bay leeyihiin lil-qital qayb bay leeyihiin lil-kanasa intubana jirkaaga ka dhaxdhacdaa bay yiraahdaan yani qayb baa kamida sahana oo sahamisa jirkaaga waxa dheeraadka ku soo baxa yani dawlad kasta iyo ciidan kasta isagoo meeshiisa iska fadhiyo in loo yimaado ma heewa inuu de sahan ku baqan yahay oo la og yahay dhaqdhaqaaqa xuduudiyaaga gaarkaaga ka socda qayb sahana jirto jirkaaga baadi doonta jarsuumo kasta ama bakteeriya kasta ama bala kasta oo cusub oo soo gasha ay xanuun soo gala xanuun kasta oo soo gala marka uu ogaado inuu soo galay waxay yiraahdaan wuu baadhaa dabeetana shifradiisa kiimaawiga abu eega nooca ay tahay dabeetana wuu soo gudbiyaa dhaakiradiisana wuu ku qoraa bay yiraahdaan buug alla ugu talagalay wax lagu qoro ayaa lagu qoraa inuu soo galay jeermis ama ciidan nooca iyo noocaasiya astaantiisu sidaa iyo sidaa tahay warkaasi waxay u gudbiyaan qaybta tasliixaaga qaabilsan qaybka hubka qaabilsan baa loo gudbiyaa qaybkaasina hub bay sameeyaan loogu talagalay in jartuumada jirkaaga soo gashay lagu dilo waxa loo gudbiyaa qayb kale oo dagaalanto muqaatilaat ah weerar gasha oo yani amikaarada iyo kaarayaasha iyo beebeeyada iyo dagaal galaysa kooxdaasi markay dagaal gasho jartuumadii jirkaaga soo gashay wixii madfac lala dhacay waa la dhacaa gacanta la isula tagaa waa lagu xoomaa waa la dagaalamaa waa la isku madhaa goobtii macrakadu ka dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala hadana khalaaya kale oo jirkaaga kamida buu ugu talagalay oo dib u fiiqo oo nadiifiya
oo meydkii iyo dhaawicii iyo wixii meesha yaallo dhan ka baxa waxay dhahdaan dagaalku meesha ka socda karkiisa iyo rasaasta ka duulaysa oo xumadan madaxaaga ka kacaysa bay dhahdaan waxay kaloo sheegaan oo yidhaahdaan marka dambe fiiqiisa iyo hagaajintiisu bay yidhaahdaan waa malaxdan iyo dhiiggan iyo xaaqadan iyo duufkan iyo waxana balqankana tuurayso oo dhammi waa mawtaadkii meeshan ku dhintay bay yidhaahdaan iyo wixii isku dilay soo duduub waxaan leeyahay waxaa ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala oo min nicmatihi ka mida awalan inuu isagu ku ilaaliya faallahu khayru xaafida isagaa ku ilaaliya isagaa wax allaaliya waxay jidhkaaga madarro ku keenaya kaa ilaaliya maca kulli dalik ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamoo kale dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala xumaha bini aadamku inuu tiro batay bad iyo bariba inuu ka muuqdo dabeetana waxa allaaliya waxayna asiibe ee dhib ee dhaco oo dhammi waxay ku sabab u ah baa la yidhaahdaa innaga mushkiladeenni dunuubteenni macaasideenni waxaynu geysanay ilaahay raxmaanka haye sidaa kuugu nimceeyey ee ku ilaaliye ku dhowray ayaad xooggii iyo caqligii iyo tamartu ku siiyey inaad isaga ku caasido ula dhaqaaqdo halkaad uga mahad celin lahayd subxaana wa tacaala waa ilaahay wuxuu ballan qaaday haddaynu mahad celinno inaan dhibinala kulmaynin haddaynu mahad celinno inaan dhibinala kulmaynin maa yafcal allahu bicadaabikum ilahay cadaabkiina muxuu ku falayaa baa la yidhi haddaa u shukri naqaysaan waxba kuma falayo laakiin alla wuxuu sheegay subxaana wa tacaala balaayooyinka dhacay oo dham inay dunuubta bini aadamka ku dhacaan sababtay u dhacaana inay tahay liyudiiqahum bacda aladii camiluu inuu dhadhansiiya alle subxaana wa tacaala wixii ay sameeyeen wax yaryaroo ka mid a maxaa laynoo dhadhansiinayaa inta tan ilahay wuxuu tilmaamayaa cillada lacallahum yarjicuun bal inaynu soo laabanno waxaynu xumageysanay baa ilaahay waxaynaga dhadhansiinayaa abaalmarkeedii isagoo ina ilaaliyey oo ina xifdiyey oo ina dhowray ayaynu caasinay oo diidnay oo ka hornimay oo ariiqiisii diidnay waxaa la yidhi in yaroo intaa ka mida baa laydin dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun inay soo noqdaan darteed inay balbasharku ilaahay subxaana wa tacaala dib ugu soo laabtaan mas'alada tan markaaynu leenahay waxoogaa baynu ka odhanaynaa waa mas'ala runtii ku saabsiisan uun maadaama aan lahaynin yani 1981 ayaa niman dhakhaatiiroo maraykani waxa ay baadheen dadkii u imanayay markaa qaar bay xanuunno ka heleen xanuunno iska fudud haddana aan la daweyn karaynin dabeetana dhakhaatiirtii kale ee waddanka gobollo kale joogtay buu warsaday war xanuunada noocaasiya ma haysaan waa laisla qiray in xanuunadaasi jiraan waana daa'ifo gaar ah xanuunadan markaa waxa laga helay waa daa'ifada qowmu luudka ah oo markaasi uu dhakhaatiirta tani ay meelo badan oo ay kala joogeen ayaa la baadhay waxa la ogaaday inuu xanuunkani jiro waxa la gartay markaasi dadkan si loo daweeyana loo garan waayey xanuunadan yararahayana dawooyinkii la siinayay effective bay noqon waayeen wax badan baadhis baa lagu sameeyey akhiiran 1983 something like that baan filayaa baa nin dhakhtar oo Francis awalan ninkii koowaad Montenegro la odhan jiray ee viruskan iyo noociisa sheega kadibna Robert Gallo nin la yiraahdo gaal Mareykan baa isna ka dambeeyay inkastoo markii dambe Mareykanku ku murmo yiraahdo anaga ka horeynay laakiin xaqiiqada waxay leeyihiin qolada Faransiiska u horeysay ogaatinka mid kastaba horeeya labada gaal baa taariifiyay ama helay HIV gan la sheegay la leeyahay xanuunkan ayuu mas'uul ka yahay HIV gan ama xanuunkani waa ciqaab xagga alle ka timi ugu horeyn wax kale ma sameeyo bay leeyihiin xanuun bahalkan yari viruskani markuu jidhkaaga galo unugyadii ku difaacayay loogu talagalay inay dagaalamaan laftoodii proteinka yara CD4 ka la yiraahdo intuu dhaafo ayuu galaa iyaga bu'da unuga ayuu dagaa dabeetana unuga laftiisii intuu iska dhigaa unbuu la tarmaa jidhkaaguba ma garan karo waxa kan iyo wax lagu dilo toona unugyadii wax dili jiray unbuu caqliga intuu ka dego unbuu dhan kale u jeediyaa kuwii adiga lagugu talagalay inay ku difaacaan unbaa seexdaan waxba difaacaynin baleba ma oga sidaa awgeed wax kastoo kugu dhaca markaa waa inay ku dilaan
duray baa ku dili kara kaneeca ku dili kartaa watii baa ku dili kara kullu shay jidhkaaga galaba yidhaahdaan oo jeermis waa inuu ku dili karaa walidaalika bay dhakhaatiirta qaarkood waxay yidhaahdaan xanuun dabadeedba xataa haddaanu ku iman bay yidhahdaan bakteeriyaad markii hore ogolaa bay yidhahdaan tacaayush silmi ogolaa inay nabad kugula noolaadaan waayo waxay arkayaan hubka meesha yaala lagu garaacayo adigana waxtar kuule bakteeriyaad badan baa jiro jidhka iskaga nool adigana waxtar kuule dhibna aan kuu geysanayn xataa kuwaasi bay dhahaa marka dambe weerarka waa isku dayaan ila waa meel bannaane maadaama aad bannaan tahay cid waliba waa ku weeraraysaa xanuunka kani markaa waxaynu leenahay waa hiivkaasi ama HIV-gaasi viruska loo yaqaano oo jidhka gelaya oo dabeetana difaacaaga laftiisii gelaya oo difaacaaga khalkhalinaya oo takaasur la badanaya difaacagaasi markuu bataba la badanaya oo ciddii ku difaaci lahayd khaasatan khalaayaadka T4 bay yidhaahdaan oo khalaayada ugu aktifsane wax difaaca ayuu caqligooda degaa DNA-gooda iyagu degaa dabeetana iyagu si kale u isticmaalaa maradka kani markaa waxaynu leenahay waa xanuun sida la tilmaamayo inta badan ka yimi xumo waxay yidhaahdaan amraad jinsiya bay imika inoo sharxaan sexual diseases waxay yidhaahdeen alamraad aljinsiya laakiin atibada rasmigii waxay leeyihiin jinsigu maradba ma lehe waa amraadu zina walliwaad bay yidhahdaan jinsigu asalkiisa kiisa xalaashii maradba ma laha si kale haddaanu tilmaamno waxaa la tilmaamaa amraadda nooca kanee la sheego inta ugu badan leh taariikhda ay ku xidhan yihiin waa fasaadka walidalik baa doctor maxamed cali albaar caalimka muslimka la yidhahda dhakhtarka macruufka ah kitaabkiisana loo yaqaano alamraad aljinsiya ama amraad alliwaat wazina magacaa uu bixiyey wuxuu kaga warramayaa taariikhaha ay soo baxeen amraadaasi iyo mid waliba inuu zino iyo qoomuluudnimo iyo xumo ula socdeen oo wakti waxaasi intishaareenun ay ahayd waktiga waxa kale ay tiro bateen walidalik maalan sivaliska xanuunkan xabadda la yidhaahdo ama herbiska xanuunkan kirkirka la yidhaahdo ama saylaanka ganoria jabtida xanuunka la yidhaahdo kuwaasoo dhan markuu isku daro mid walba taariikh buu u tilmaamayaa waa taariikhahay soo caanbaxeen oo xataa duwalkii ay ku soo caanbaxeen iyagu ay isku caayi jireen oo la yidhaahdo maalan xanuun faransi aad maqlaysaa ama almarad alfaransiya ay qole u taqaanay qaar kale xanuunada ka mid ah marad itaaliya ay u yaqaaneen waa waktiyo ciidamo duwalkaasi ay lahaayeen dhulalintay jiidheen ay waxay arkeenba fuuleen oo fasaadku waa aada u tiro batay yani waa tabiib waa nin dhakhtara oo takhasusaadkiisii ka warramaya si fiican buu uga warramayaa maradkan iyo xidhiidhka ula lahaa xumaha kan laftiisa aynu hadal hayna ee aidiska kitaabkiisa uu kaga warramaya kitaabka loo gaaro isagii ninka la wada qorayna uu kaga warramaya isagoo masaladan taariikhiga ka warramaya anugu markaa maadaama aan idin idhi tabiibna mayhi tibna ka warrami mayno waayo mar haddaan annana aanan garanaynin iyana aanay garanaynin dee tib wax laga sheegaaba meesha ma yaallo waxa qudhe mudan in laga warramaa wuxuu yahay waa suluugga qofka bini aadamka ah qaab dhaqameedka waxaa la isweydiinayaa markaa maxaa waxa kan keena waxaa cad waxa kan inuu xumo ka bilaabmo waxa kaloo cad oo la tilmaamaya faafistiisa markay ka warramayaan dhakhaatiirtu 90% bay leeyihiin waxa uu ku faafaa waa zinada ama waa galma dhaafkaasi iyo wixii la halmaalaa 90% noocaas buu ku faafaa weliba 90kaasay sii kala qaybeen 90kaasi bay yidhahdaan 60% waa zinada caadiga 40% waa qowmuluudka bay yidhahdeen inkastoo markii hore uu bilaabay 70% uu ahaa qowmuluudnimadaas markaan soo koobo waxay yidhaahdaan 5% in ka mid ah 5% 5% ayaa inta badan can ariiqi dam ku faafta bay yidhahdeen dhiigagan dadka lagu shubo iyo dhakhaatiirtu dhiigga dadka ka qaadaan amase kuwan beleda cabe ee wax isku muda irbadan yar ay wada isticmaalaan iyo waxa la nooca yani mukhadaraadka dadkan isticmaala Yurub iyo meelaha kan inta badan dee koox kastoo meel wada fadhida intay mukhadarka yar qaataan ba xabad qura la isugu mudmuda marka waa isla dhiigii uun ariiqa dhiigga bay yidhahdaan 5% buu leegiye waxa ku faafa idan bahalka kani mainly waxa ku faafay aan la isku waafaqsan yahay waxa weeyaan waa galmo waxa raaca waa dhiiggaasi iyo mulawasaadkiisa la socda in yaroo kala la sheego yaro ku saabsan
xamliga iyo radaacada hooyada qabto bahalka kani ilmaha ay dee uurkeeda ku jira way siisaa inkastoo qaar aan ku dhicinna la arkay laakiin iska mucjizaad bay kuwa qoraan inta badan waxay yidhahdeen hooyada bahalkan qabtaa maadaama uu dhiiggeedii ilmaheedu ku nool yahay waxay u badan tahay inuu maxay uu ku dhaco qaarna waa la arkay bay can ariiqi thadi uu kaga qaaday ama waxa ka soo hadha bay yidhaahdaan candhuuftan iyo taabashadan iyo waxa kan waa ku jiraa horta hiif ahaan waa la socdaa dheecaan kastoo qof ka soo baxa laakiin waxay yidhahdaan dheecaanadan kale kala socdaa waa daciif saa daraaddeed inta badan wax ma gudbiyaan waxa gudbiya asalka ee la rumaysan yahay waa saddexdaa nooc aan soo sheegnay uurka iyo wixii la halmaalay dhiiggan la isku shubayo iyo galmada dawo lama hayo marka maxaa xala waxay yidhahdeen safe sex baa xala kuwa dambe markuu bilaabmay laakiin waxay yidhahdeen waxaa xala only one partner bay yidhahdeen ha duulduulina mid qura uun joog waayo dee ziwaajkaba ma rumaysana maadaama aan ziwaajba la rumaysanayn oo maanta dee caalam ilgarb maxaa usra la yidhaahdaa waa la bedelay musطalaxaadkan maanta aynu isticmaaliya waxa reer maxaa la yidhahdaa reer waxaa la yidhahdaa labadii qof ee dawladda iska register gareey ee wada noolaada waxay doonaan ha ahaadaan laba dumara laba nin iyo gabadh kiniisad ha tageen yay tegin meeshay doonaan reer waxaa la yidhaahdaa iyaga cinda qaanuunihim labadii is register gareeye guri wada galay idan waxay leeyihiin only one partner lagu odhan maayo war haweentaad qabta ku koobnow oo familiskiina aha oo ziwaaj ha ahaado ee waxaa la rabaa in la jamciyo wax oo dhan wax sharciya laga dhigo dabeetana waa in la yidhahaa partner kelmad kaloo ingiriisiya waa in loo adeegsadaa oo aan ahayn tii ziwaajka sheegi jirtay iyo waxaasi hal saaxiiba ku kaaftoon bay yidhaahdeen waa sida quree bay yidhaahdeen aad ku badbaadi karto haddii duulduulkaaga loo taag waayana bay yidhahdeen war condom isticmaal okay waxay leenahay waxaan oo dham hadduu zine iyo qurun ku saabsan yahay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ina leeyahay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum waashadda tahbiita waidan laaataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraatan mustaqiima ilahi wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi dadkani hadday samayn lahaayeen wixii lagu waaniyey baa ilaahay leeyahy waxaan faray ee noloshooda iyo suluugooda iyo qaabkay u noolaanayaan ay ugu dhaqmi lahaayeen kaan faray hadday qaataan baa ilaahay yidhi lakaana khayra lahum washadda tahbiita kaas baa u khayr badnaan lahaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala xagga allana subxaana wa tacaala ay ajar badan kaga heli lahaayeen dariiq toosanna ay ku noolaan lahaayeen ilahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya walow ana ahlu lquraa aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaa walakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun waxaynu u baahanay marka aynu mar hadduu cilaajku ku soo arooray suluugaaga iyo dhaqankaaga oo aan laynoo sheegaynin qaab dhakhtarnimo iyo daaweyn aan la sheegaynin ee warku uu ku kooban yahay is-ilaalin iyo see laysu ilaaliyaa ma aha inaynu sida babqaawaadka ku celinno wixii gaalku sheegunayna inaynu ka daba nidhaahno oo la yidhaha condom ha la qaatiyo condomka ha la qaybiyo condom caynkan ha la yeelo waa lugati ahli lkufr sida iyagu u xalileen waayo iyagu ma awoodaan inuu yidhaahdo maanta ninka maraykan joogaa ma awoodo inuu yidhahdo dadkaa zinaysanina waayo zinadu waa min alfadaa'il bay ka mid tahay ma ceebba maaha wanaaggay ku jirtaa qofku inuu suuqiisa iska galo bale ilmaha yar ee dugsi dhexe dhigta ee la yidhaahdo macallinku markuu weydiiyo saaxiibad maleeda yidhahda saaxiibad ma lihi waxaa la yidhahdaa wuu bukaayo ballan ha looga sameeyo dhakhtarka cilmi nafsiga yaqaana idan qof rumaysanba haddaanu suuqa gelin inaad bugtaa muxuu kugula talinaya yani waa qaacida caama yani maaha masale lagu qaslo runtii waayo waa mujtamacaad xad fasaad ka gaadhay ah in laga dhigo qofka bini aadamka in sagaska hogaamiyo yani in baahida jinsiga ah inay qofka bini aadamkaa gebigiisaba hogaamiso walidalik la weydiiyey ilmo yaro caruuro dugsi dhexe dhigto dhowr iyo 10 jir in la yidhaahdo saaxiib ma leedahay ama saaxiibad ma leedahay hadduu yidhaahdo maya in la yidhahdo cuqad nafsiya buu qabaa freud iyo arrimihiisii loo kaxeeyo
oo la yidhaha cuqad nafsiya buu qabaa mucaalaja buu u baahan yahay in la daweeyo daaweyntuna waa maxay waa tabiibka nafsiga in lagugu yeedho dabeetana tabiibka nafsigii waxa koowaad maca dadka waalan waxa koowaad ay kula taliyaan waxa weeyaan ma galmoota bal aduu dhakhtar waali ka shaqeeyaba u tag meesha doonta ugu tago su-aasha koowaad ee ku weydiinaya waxa weeyaan ma leedahay xaas ma leedahay ama saaxiibad ma leedahay duu muslim yahayna xaas buu ku weydiin si uu gaal yahayna wuxuu ku odhan doonaa un saaxiib ma leedahay calaa kullin waxay leenahay cindahum shay muddo la soo faafinayey oo la ballaadhiyey oo mujtamacaadka qiyamkiisa iyo waxay rumaysnaayeen ka mid noqday maanta nina intuu istaago ma odhan karo yaan la ziraysanin maadaama aanu odhan karin maxaa xal ah yacni hoos waa loo yidhaahdaa masalada tan markaan kuleeya lama odhan karo waxaan uga jeedaa yacni siyaasaati dawla ma qaadan karto ama markaad buukiska iyo dadka cilmiga maalan doctor kanj waa dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirtooda macruufka buug buu leeya la yidhahdo alamraad izuhariya sivaliska ayuu ka warramaya xanuunkan la yidhahdo sivaliska waa xanuunka soomaalida tiraa xabadda waa xanuunada qurunka ka kaca ah marka dambena waali keena sivaliskaasi ama xabaddaasi ama zuhari xanuunkaasi la yidhaahdo ayuu buug ka qoray dabeetana wuxuu leeyahy ina alaamaal التي كانت معقودا على وسائلنا الطبية الحديثة والقضاء في القضاء أو على الأقل الحد من الأمراض الجنسية قد خابت وباءت بالخسران إن أسباب نكن وحو كأن دعاني وحو لي وحلالي وحي أنه أمل قبني بولي يا الرجو يا أنه يسلحين بولي حنون كاسي سيفاليسك الله يداهضو daweyntan guud iyo waxa kale way ka takhalusi doonaan ama cala alaqal waa xadayn doontaan khasaaraanu ka gaadhnay buu leeyahy manay dhicin haba yaraatee wixii aanu u baahnayn inaanu kaga guulaysanno may dhicin sida daraaddeed waxa uu ku andacoonaya uu leeyahy waxa aan ku talinaynaa buu leeyahy suluuga bini aadamka in wax laga bedelo yacni taladiisii dhakhtarnimo clinicalka ahayd ama dhakhtarka iyo laabka joogtay way socon weyday marka wuxuu leeyahay qaabka qura ee badiilka aan hayaa waxa weeyaan in wax laga bedelo qofka bini aadamka iyo dhaqankiisa oo zinadan iyo xumahan iyo qooqan iyo dhibtan tirada badan leh in la joojiyo markaan kalimaadka soo koobo maanta xanuunkani mid la dafiri kara maaha AIDS waa jira dad badanna waa laayay waxaana dadka badh ku andacoonayaan xataa inuu ka mid yahay hubabka la isticmaalo yacni dunida maanta waa maqashaan waxa la yidhahdo maxay hubka biologiga iyo ka chemicalka iyo hubabka khatarta ee waxgumaada waa maxay hubabkan biologiga iyo ee waxgumaada masalan maanta dunidu waxayna leeyihiin furqi waa la cidhib tiray laakiin isagoo hubabay raashi iyo maraykan ba haystaan baa lagu andacoonaya furq xanuunkii furuqa la odhan jiray waxay leeyihin waa laga soo hoyday laakiin furuqiyo laabka lagu tatwiiriyey oo markii loo baahdo isagoo bama madaxa lagaaga dhufan karo oo dabeetana intuu dadka ku faado hargeysoo dhabe maanta intay baaba'do furuq ay u dhiman karto oo wax lagu daaweeyana aanu jirin boo kaydsan baa la hayaa saasaa lagu andacoonaya idan xanuunadana maqlaysaa markaad maqasho hubabka biologiga iyo chemicalka iyo waxa kani waa sumo iyo xanuuno la kaydsaday uunoo sidii hubka loo ridayo oo loogu talagalay in dadka lagu mariyo wax xaqiiqo jirta markaa maanta oo dad badani ku andacoonaya wadannada qaarkood in si dhaba loogu faafiyey aidskan laftiisu in si dhaba loogu faafiyey bale dad badan oo afrikaana waxay ku andacoonayaan afrikadan hoose sii maranaysa in tajaarib ahaanba asalkiisu uu ka yimi kii lagu isticmaalay waxba yaan la isugu warrabin daayar baa laga soo qaadayda daayarada weligood bay cunayeen inay ka qaadaan idan waxaan leenahay xanuunkani wuu jiraa oo xaqiiqo jirta wadannada qaarkood dhiigag baa la siiyey la og yahay inuu sumaysan yaho aids leh dhiigag dhakhaatiirta la siinayo dadka lagu shubayo oo laakiin dhiiggu uu mulawas yahay dhiig buka uu yahay markaan soo duuduubo waxaan odhan karaa maanta dunida falsafada in dadka la yareeyo badan baa rumaysan tarmi waayaa rumaysan kuwa tarmaya in la iska reebo si kaloo la isaga reebaana dee ma jirto waa in wax taranka ay ku yareeyaan la siiya ama xanuun ha noqdo ama condom ha noqdo
ama biilis la liqa ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdee waa in taakulayn nooca kana la siiya. maanta ma dafiri karno, ma odhan karno xanuun ma jiro, cidina ma dafiri karto. dunidiina waa koomba yar oo haddii waagii hore la odhan jiray dunidii magaalay noqotay, magaalo ka yaraatay iminka maqsin bay noqotay. yacni waxa xanuunka dunida tarafkeeda ugu dambeeya yaalla maalmay qaadanaysaa inuu halkan yimaado. haddii intaa lagu daro in colaadina jirtana iyana kaba sii dhow. haddii colaadina ay jirto isna safrintiisu kaba sii dhow. waayo mabaaxista caalamku maanta kaysaska laysoo haysta waxaa ka mid ah dumaro badan oo laysu safriyo la garanayo cidda soo safrisay iyo meesha ka timi iyo inta qof ay qaatisay iyo mabaaxistii waddanka kaloo haysa. waa kaysas macruufa oo aan ahayn dacaayad iyo xarbi iclaamiya aan ahayn. waa kaysas macruuf oo la yaqaano oo weliba caalamulislaami ka dhacay. bale haddadan kaysaska qaarkood ay socdaan maala fi yamanta intayna noo jirta kays baa jira ka socdo ku saabsiisan waaxid raaqisa meela laga keenay oo aada u qurux badan laakiin habaarkan hoosta ku sidata oo dabeetana in badan sadhaysay oo la leeyahay akhiiran waxaa la ogyahay inay ka tirsanayd maxay dadkan wax faafinaya inay ka tirsanayd. anyhow xanuunku wuu joogaa, nabad iyo colaad iyo wuxuu doonaya ha ku yimaado. laakiin waxa weeyaan maxaa la iskaga celin karaa? waxaa la iskaga celin karaa ee koowaad waa idinkoo dhowrsada. waxaa la iskaga celin karaa wacdi ku saabsiisan maaha condom qaado iyo kan qaado. waa wacdi ku saabsan war ilaahay ka baqa oo galmada xaaraanta joojiya oo hal la dhaafo qurunka la faafinayo o dhan. haddaynu taa qaadanno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh min mucjizaatihi waxaa ka mid a balaayooyinkan inay dhici doonaan inu kasii warramay. walikulli naba'in mustaqar baa ilaahay yidhi. war kastaana wakhtigiisuu leeyahy. mucjizaadkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah nubu'aat, waxuu ka warramo qeybka ku saabsan. waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona aada u tiro badan ayaa ka mid ah. waa xadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dhammaantood ku qoran. maalan haddaynu hal xadiis soo qaadanno oo axaadiistaasi rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ka mid ah. xadiidkaasi oo ibnu maaja uu warinayo iyo tabraani fi lkabiir, sheekh ilalbanina silsiladiisa saxiixa uu ku soo saarayo. waxa uu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ya macshara almuhaajiriin khamsun ida ibtuliitum bihina waacuudu billahi an tudrikuuhun لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواية إمام مالك نسيق حلي ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثرت فيهم الموت. نبي صلوات الله وسلامه عليه isagoo saxaabadii la hadlayo wuxuu yidhi muhaajiriinay 5 shay haddii laydinku itixaamo ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan idin soo gaadhin idinka. yani mustaqbalka wuxuu tilmaamayaa wax dhici doona oo asxaabtiisii muhaajiriintahay nebigu ilaahay u weydiinayo inaanay soo gaadhin. waxa dhici doonta buu nebigu leeyahay uu sheegayaa markaa qoom faaxishada zinada iyo qowmuluutimada iyo waxa la nooca ma cadaystaan, lama odhan kuma dhacaan. waayo mujtamacaat albashariya qof dambaaba lagama waayi jirin. xataa cahdu saxaaba lama waayin qof dembi ku dhaca. intay zinaysteen waa kuwii toobad keenay ee badh la rajminayey, badhna la jeedalayay. idan mujtamaca lagama waayo qof laxdatu dacf ay haleesho oo dhib ay ku timaado. laakiin masaladu markay noqoto mas'ala muclana daahira ijtimaaciya waxay ku sheegaan, markay noqoto muuqaalada nolosha ka mid ah,
markay noqoto xaafado dhan in la yidhaahdo waa xaafadihii ay xumuhu deganaayeen oo dumarka xunxun baa loogu tagaa marka ay noqoto xad inay dawladuhu gooyaan sukuugta cashuurta laga qaado baqaayaadka caalamalislaama laga jaraa caalamalislaami duwalkeeda qayb ka midi xataa caahiraadka zinadooda qayb baa cashuurta dawladda ka mid oo dawladdu qaataa oo sharciyan waxaa la leeyahay gabadha aan dawladdu liisans u jarin sida dukaanka liisanska loogu goosto ayaa caalamulislaami qaybo ka mida liisans loo jaraa iyadoo caalamu ahlu kufri qaybo ka midi ay mamnuuc tahay jidhka in la iibiyaa masalan waddankaan deganaan jiray norway waa mamnuuc caahira jidh iibinaysa in la arkaa waa fasaxantay haddaa heshiisaan ciddaad doontaan inay israacdaan laakiin waxaa mamnuuca inaad lacag kala qaadataan qaanuunuhum yani saas u dhigaya waxaa mamnuuca meel laba in la furto caahirada ay leedahay maca dalika caalamulislaami qaybo badan oo ka midana waxaa jira dawladdu cashuuro ay qaado dhakhaatiir u gaaro ay leeyihiin dumarkan iyo lagu daweeyo bale waxaa jira liisanskooda waxyaabaha iminka lagu soo rogay waxaa ka mid ah in labadii biloodba mar lasoo siiyo caddaynaa inay aidiska ka maran tahay si ay u shaqaysato oo dawladdu inay liisanskeeda la socoto in labadii biloodba mar dhakhtarka intay tagto ay certificate soo qaadato ah dukaankani inuu dukaan alaab fiican iibinayay maxaynu kale ku sheegnaa yani wax kale ku tilmaamno ma garayno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya xumahaasi ma socdaanoo sidaa uma faafaan ilaa iyo waxaa dhaca buu nebigu leeyahy fasha fiihim الطaacuun walawjaac alatii lam takun madat fi aslaafihim aladiina madow waxaa ku soo baxa xanuuno iyo waba balaayooyinka cusub baa ku soo baxa waan iyaga dadkoodii horeba ku dhici jirin buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh يعني مركز تو ظاهرة إعان نقطه إذا دكتور محمد علي البار في كتاب الأمراض الجنسية مركز وتلمامة يقضي يضة حديث كان بو كتاب بوغي سردان وعنوان وقد قايا دبتنا وكودريري يا إنو قاب كو قرية مسألة كصابسا دبتنا وحو تاريخيا وعدينا يا حانون كستو عصبو نوعا كمدي وقتي وصاب حينا هيد وقتي حماه كان وفافي أو آدو بلادي هدي كان ما أنت دو الله له iyadoo maanta 20 sanadood la baadhayo in dawo loo helo daaye la laayahay maxay in loo helo maxaa la yiraahdaa talaal waayo waxay leeyihiin yatagayar shaklu waa bahalkan uu isgadiya kiimika uu ninkan laabka fadhiya baadbaadaya noocan ahayn uu baahday isu bedelaya marka uu bahasha lymphatic cells-ka markuu dhex dego yatagayar bal jidhkaagu ma dareemi kara bay leeyihiin xataa inuu xanuunkiyay marar badan wuxuu qaadanayaa inuu khalaayaga caadiga u yahay idan ilaa hadda looma hayo maadaama tagayurkan tirada badan leh nooca kana uu wado ee uu markasta shakliyadiisa bedeli karo virus-ka yari lama hayo wax lagu daweeyo iyo wax wali lagu tallaalo toona waa si suurtagal maadaama uu nabigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay ma soo dejin xanuun ilaa iyo wuxuu u soo dejiyey maxay dawaa